maanta ay sabti tahay 25 bishii December 2021 golaha deegaanka ee degmada Burco waxa uu u balansanaa oo maanta qabsanayay kalfadhigiisii afraad saasi darteedna runtii halkan waxa jooga 6 xildhibaan oo kamid ah 7 xildhibaan oo golaha ka soo kacay sababo la xiriira xirjabin iyo awood maroorsi iyo runtii ku tagrifal awoodii iyo hantidii dawladda hoose saasi darteed waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo xildhibaan Maxamuud Axmed Shimbir inuu akhriyo qodobada aan runtii ka dacwoonay kuna eedaynay duqa degmada Burco marka waxaad ku soo dhawaanaysaa Maxamuud halkan shacabka iyo Somaliland dawladeeda iyo gobolka inta kan shir jaraa'id caawa ugu qabtay waxa la igu soo wargeliyay in berito hawshii doorashada ee xildhibaanada iyo dhaarintoodii ay dib u dhacday sababna looma soo sheegin marka halkan waxa ka cadeynayaa inaan raali ka ahayn taas waxaan soo jeedinayaa oo waliba xukuumadda u soo jeedinayaa inay doorashadaasi sidii dadku ay rajeynayeen shacabka Burco ay ku qabtaan iyagoo tixgelinaya tareenka shacabka iyagoo tixgelinaya nabadgelyada iyagoo tixgelinaya dadkii runtii doorashada sida quruxda badan ay u dhacday doortay xildhibaanadooda imikana rajeynayeen inay maayir iyo maayir ku xigeen ay doortaan marka waxaan leeyahay xukuumadda maalin iyo saacad toona dib ha u dhigina idinkoo tixgelinaya dadka shacabka ah insha Allah intaasaan soo jeedinayaa sidaan sheegayna waxa weeye doorashadan waxa lagu kala sid qaadayaa 13 xildhibaan dhexdooda uma baahna farafarayn dawladeed uma baahna arrimo kale oo xasaasi ah oo dibadda kaga yimaada waxay u baahan tahay 13 xildhibaan inay u gartaan cid ay doonayeen maayirka ka dhigtaan marka waxaan ku celinayaa mar labaad inaan dib loo dhigin arrimo kalena lagu xidhin xasaasiyadna la gelin Burco uma baahna nabadgelyadeeduna uma baahna horumarka iyo dadka magaraysa wada